gudida ka hortagga xanuunka coronavirus ee gobolka Togdheer oo ay ka mid yihiin barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr Maxamed Casayr isduwaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta gobolka Togdheer Siciid Salebaan Nuur gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta Kayse Xaaji Deeriye taliyaasha ciidamada booliska asluubta iyo militariga ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ahaaneed ee gobolka Togdheer kuwaas oo sheegay inay xilligan wanaagsan tahay waxaana kamid ah hadaladoodii maanta oo ay bishu tahay 13 bishii afraad 2020 waxaanu isugu nimi shir ballaaran xafiiska barasaabka casho dhaweyd laba nin baa tuulada Nasiya laga keenay labada nin labadoo way xanuunsanayeen midna uu dhintay magaalada tuulada ku dhintay midna waa la soo qaaday oo waxa la dhigay halkan isolation hospitalka marka labada nin kii mid waa dhintay ilaa naxariisto kii labaad waanu isolate gareynay daweyna waa la siiyay dhiigna waa laga qaado Hargeysa iyo Nairobi baa loo diray waxaan u qabanay maanta shirka jirayd in maadaama ay xaalad inagu soo korodhay oo aad ogtihiin xaalad caalamka oo dhan ku soo korodhay inay jirto oo ku saabsan xanuunka coronavirus waa muhiim ama waa daruuri in marba marka aynu joogno week joognaba aan iswareysano oo mujtamaca reer Togdheer bulshada aan uga waranno xaaladdu halkay marayso maxay inagu soo kordhay wax kiisa cusub inagu soo kordhay ma sidii baynu wali u bad qabnaa maxaynu u baahanahay maxaa la yeelayaa waa daruuri waana mas'uuliyad dhamaanteed in wada saaran inaanu anaguna soo gudbino saxaafaduna ay sii gudbin waa wacyigelin iyo ku baraarugsanaan uun xanuunkan halista ah ee faafaha daran dunida saameynta baan ku yeeshay sida aynu uga digtoonaan lahayn isla markaana saameyntiisa iyo dhibaatada uu keenayo caalamka ku hayo si aanu inoogu keenin ka hortagiisa aynu u qaadano cudurrada la sheegayo in ilaahayna garab mariyo Soomaaliland oo dhan iyo wixii ummadina maxayba islaama runtii isku duwaha caafimaadka warramay inagu waxaanu maanta u sugnimid waxa kaliya weey inuu fariin caafimaad dirno awareness dadkeena inaynu wacyigelin u gudbino weeye ilaahay horta waxaynu ka baryaynaa ilaahay baynu ka baryaynaa in ilaahay inaga badbaadiyo bilaaadmi baynu itaal daran ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inaga badbaadiyo waxa weeyaan waa xanuunka dunida oo dhan maanta haya horta ilaahay baa awood iska leh awoodda ilaahay wax ka weyn oo la dugsadaana ma jirto gudida ka hortagga xanuunka safmarka ee coronavirus ee gobolka Togdheer ayaa wada dadaal iyo wacyigelin dheeraad ah oo ay kula tacaalayaan xanuunkaasi Maxamed Wardi TV-ga qaranka Burco.